Waxaa maanta wada ciyaari doona kulan ka tirsan horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya. Kooxda Muqdisho City Club iyo kooxda kubadda gacanta ee gabdhaha Horseed. Kulan ciyaareedkan ayaa ka tirsan horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya. Kulamada ayaa ah kulankoodii afraad, halka kooxda Horseed ay u tahay kulankeedii labaad, halka Muqdisho City Club ay u tahay kulankoodii koowaad, maadaama kulankii hore ay la ciyaarayeen naadiga Hegan uu baaqi noqday. Waxaana la fili doonaa in dhowaan ay ciyaaraan labada kooxood. Marka la fiiriyo, waxa ay soo bandhigi doonaan qaab ciyaareed aad u wanaagsan oo kooxda Horseed ayaa dooneysa in bandhigeeda maanta ay wax badan ay ka bedelaan, maadaama kulankii madbacadda ay la ciyaareen ee guul ay ku soo furteen. Waxayna filayaan kulankoodii labaad in maanta noqon doonto kulan ka gedisan kulamadii hore oo ay dooneyso inay guul ka gaarto, halka kooxda Muqdisho City Club oo kulankan ay ka hortagi doonto kulankoodii koowaad ee naadiga Horseed ay markaasi ay dooneyso inay ka guuleysato, maadaama kooxdan tartanka bilowgiisii kulanka ugu horeeyay ee ka baaqday oo noqon doono kulankoodii labaad ee la ciyaari doono. Waxayna dooneysaa inay guul ku furato, waxaana u harsan oo kaliya laba kulan oo ay markaasi la ciyaari doonto kooxda marka lagu magacaabo madbacadda iyo kulanka Hegan ee la ciyaari doono. Labada kooxood diyaar garowga ka muuqda ayaa markaasi ka duwan kooxaha kale ay doonayaan heerka markaasi ka taagan yihiin horyaalka dalkeena Soomaaliya. Kooxda Horseed oo dooneysa in mar kale ay ku guuleysato horyaalka ayaa dooneysa in maanta guusha ay rabto ay ku xisaabtami doonto kulan ciyaareedkani. Waxaana u harsan hal kulan oo kaliya la ciyaari doonto kooxda Hegan. Maalinimada Jimcaha ayayna wajihi doonaan labada kooxood. Marka la fiiriyo, kulan ciyaareedka ayaa ahaa kulan ciyaareedkii ugu weynaa labada kooxoodba ay iskaga hor imaan doonaan Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda Horseed oo ay dooneyso inay markaasi dhigeeda loolan adag kaga dhacaan. Waxaan eegi doonaa kulankii shalay ay iska hor imaadeen gabdhaha Hegan iyo sidoo kale gabdhaha madbacadda. Waana kulan aad u xiiso badan markii laga eego labada kooxood. Waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u sareyso, waxaana guusha markaasi qaateen gabdhaha kooxda Hegan oo 30 gool ay ka dhaliyeen dhigooda kooxda madbacadda, halka madbacadda ay la yimaadeen 12 gool, sidaasina looga adkaaday. Madbacadda ayaa horey u soo ciyaartay naadiga Horseed, waana laga soo guuleystay wax dhibac ah markaasi maysan helin tartankan, halka Hegan ayadana ay ka wadato hal kulan oo guul ah, sidaasina ay ku haysato 3 dhibcood. Waxayna isku dhibco yihiin naadiga Caawiye Maalin ee Horseed. Haddii Horseed ay maanta adkaato, hoggaanka ayay qaban doontaa. Hegan waxaa u baaqi ah kulanka madbacadda iyo kulanka Horseed ee Jimcaha ee la ciyaari doonaan. Labada kooxood ayaana sidaas iskaga hor imaan doona tartanka xiisaha badan oo wajiga hore ee horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya uu yahay. Waxaana maalinimada Jimcaha la soo gabagabeyn doonaa wajiga hore ee horyaalka lagu soo xiri doonaa kooxaha Hegan iyo sidoo kale kooxda kubadda gacanta ee Horseed. Waxaana kulanka baaqiga iswajihi doona kooxda kubadda gacanta waa kooxda markaasi lagu magacaabo Muqdisho City Club iyo Hegan ayaa kulankoodii baaqiga ciyaari doona. Sidoo kale tartanka aad ayuu xiiso badan yahay. Maalinta berito waxaa iswajihi doona kooxaha markaasi Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda madbacadda ayaa ciyaari. Waa maalin taariikhdu ay tahay 21 oo maalinta Khamiis 1 bisha ay markaasi tahay maalinta Khamiista. Waxayna iswajihi doona waa gabdhaha markaasi madbacadda iyo sidoo kale Muqdisho City Club ayaana ciyaari doona. Waana kulan aad markaasi u xiiso badan oo ay iskaga hor imaan doonaan. Waana kulanka kama dambaysta maalinta berito wax ciyaara markaasi ma jiraan oo Khamiista ayaa kulankaasi la ciyaari doona. Jimcahana waxaa lagu soo gabagabeyn doonaa Hegan iyo Horseed. Waxaana la bilaabi doonaa wajiga labaad ee horyaalka oo Isniinta nagu soo fooda leh ay markaasi iswajihi doonaan kooxda markaasi Hegan iyo sidoo kale MCC ayaa lagu bilaabi doonaa.